halganka noloshaada ugu jirto iyo hiigsigaada nolosha aad ka leedahay marnaba ha isdhiibin. sidoo kale waxaad ogaataa in ay jiraan dadyo fara badan oo mar walba ku niijabi karo. sheekada aan maanta ka hadli doono waa sheeko xigmadeysan ilaa iyo bilow ilaa iyo dhammaad. haddii aan ugu xirnaato waa ballan in wax badan aad ka faa'iidi doontid. waxaad ka daawanaysiin barta YouTube-ka aan ku leeyahay Socdaal 24 iyo aaladeena TikTok-ga Socdaal 24. waxaynu ku bilaabanaysaa sida tan. koox dhalinyaro ah ayaa hadda kahor waxay ku heshiiyeen in ay tartan galaan. magaalada ay degnaayeen ayaa waxa ay ku taalay buur aad u dheer. dhalinyaradan ayaana waxay ku heshiiyeen marka la gaaro in maalinka ciidda oo dadka ay dhan ay fasax yihiin inay buurtan ku tartamaan. qofka meesha ugu sareysa tagane uu noqonayo kan guuleysto. dhalinyaradii sidaas ayay ku heshiiyeen. waxaa la gaaray maalinkii ciidda waxaana meeshii buurta ahayd ee dalxiiska soo buux dhaafiyey dadyo fara badan oo markaas imaaday. dhalinyaradii ayaa sidoo kale imaaday iyo dhalinyaro kale oo cusub oo magaalada markaas ka imaaday oo halkan dalxiis u imaaday. dadkii oo dhammi waxay wada sugayeen tartanka quruxda badan ee halkan lagu geli doono iyo qofka guuleysan doono. waxaa bilowday tartankii aadka u quruxda badnaa ee la wada sugayay. dhalinyaradii markii hore ballameen in magaalada sharafteeda ilaali doonaan ee tartanka geli doono iyo dhalinyaro kale oo magaalada dalxiis ugu imaaday ayaa buurta imaaday. buurta qofka ugu sareeyo ee fiideeda kore tago ayaana noqonayo ruuxa guuleysto. tartankii markuu bilowday dadyoogii ama dadkii ka soo qayb galay waxa ay isla jaan qaadeen ilmahan ma kori kara meeshan iyo hadallo kale ay ka mid yihiin allah buurtan dheer siday u kori doonaan. dadkan ma fiidda ugu sareysa ayay tegi doonaan. ilmahan waa la soo qalday iyo waxyaabo kale ayay dhaheen. taasi oo niijab ku noqotay dhalinyaradii halganka ugu jirtay meesha ugu koreysa ee buurta inay tagaan sidoo kale ay ku guuleystaan. hadalladaas xanjafta leh ee qalbigooda gaadhay ayaana sabab waxay keentay dhammaantood qalbigooda inuu dhaawaco halgankii tartanka ay ugu jireen. qaarkood markii ay kareen buurta ayay meel dhexe ka soo noqdeen. qaar kale bilowgii tartanka ayay ka hareen. kuwo kale buurta ayagoo meel dhexe marayo ayay sidoo kale waxa ay ka soo dhaceen buurta. mid ka mid ah dhalinyaradii ka soo qayb gasha dalxiiska ayaa ugu dambeyn guuleystay. asagoo tegey fiidda ugu sareyso ayuu tegey waana uu guuleystay. dhalinyaradii markii hore halganka ugu jiray iyo sidoo kale markii hore isku ballansaday ayaa dhammaantood waxay u imaadeen wiilkii guuleystay ayaga oo su'aalo weydiinayay sababtuu u guuleystay iyo meesha halgankan uu ku soo bartay. laakiin wiilka ay wax weydiinayeen wuxuu ahaa wiil dhagool ah. ma uusan maqlayn hadalladii xanjafta lahaa ee ka soo yeerayay dadyowgii ka soo qaybgalay munaasabadda. taasi ayaana u sahashay inuu guuleysto. xigmadda ama sheekadan nuxurkee leedahay ayaa waxay tahay halgan walba oo nolosha ugu jirto waxaad ogaataa inay jiraan dadyo fara badan oo ku niijabi karo kuwaasoo horumarkaada iyo hiigsigaada nololeed ka hor istaagi karo. wiilkaas dhagoolka ah ma uusan maqlayn hadallada xanjafta lah ee dadkaas ka soo yeerayo laakiin dhalinyaradii kale waa ay niijabisay. xigmadda sheekada ay leedahay ayaa sidoo kale waxay tahay weligaa ha isdhiibin. hadallada dadka ka soo yeeraha fiirin. halgankaada nololeed mar walba sida aad ugu horumari lahayd hiigsigaada nololeed mar walba gacanta ku hay. oo waxaa jiro dad muuqaada iyo araggaada iyo horumarka aad samaynaysid ee mar walba dhib ku tahay. waxaa sheekadan idiin soo gudbinayay anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed Mahad Socdaal. intaan ku kulmi doono sheeko noocan oo kale ah nabadgelyo. waxaana sheekadan noo soo gudbiyey Ismahaan oo ka mid ah gabdhaha ku xiran barteena YouTube-ka Socdaal 24. adiga haddaad heesid sheeko noocan oo kale ah aad isleedahay saaxiibada waa loo soo gudbi karaa qaybta commentiga
ayaad noogu soo gudbi kartaa waana soo qaadan doonaa tani intaa ku kulmi doona sheeko noocan oo kale ah waa saaxiibkii mahad socdaal oo idin leh nabadgelyo muuqaalka sheer gareeya si saaxiibo badan uu gaaro